shirka nabadeynta ardayda walaalaha ee shaqaaqada ku dhex martay deegaanka Dhabardarool ee gobolka Sool ayaa maanta ka furmay degmada Yogoori waxaana shirkaasi ka qayb galay wafdi wasiir ah iyo jananada ciidamada qaranka oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha warfaafinta gaadiidka ganacsiga xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada madax dhaqameed ka kala timid gobolada Togdheer Sanaag Buuhoodle iyo meelo kale ergooyinka labada arda iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana shirkaasi sidoo kale qayb ka ahaa dalada Soonsafa iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo gacan ka geysatay shirka nabadeynta garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maanta inaynu degmada Yogoori aynu wada joogno inagoo isu dhan oo waxa weeye hooyo isku aaba ah aniguna aan garaadkiinii ahay in dhibaatadii ka dhacday deegaanka Dhabardarool inaad maanta isugu timaadaan halkan oo idinkoo isku qalbi oo isku mid ah aad kaga wada hadashaan waa wax Ilaahay loogu xamdina qawi waxaan idin leenahay dhammaan soo dhawaada ku soo dhawaada degmada Yogoori qalbi furan farxad iyo rayreen ku soo dhawaada ama gogoshiga ay fidiyeen beel ka mid ah labada beelood labaduba marka hore aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida ay u ajiibeen nabadda iyagoo ay hore u soo socotay mar labaadka waxaan aad ugu mahadcelinayaa beesha gogosha dhigtay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed warfaafinta Salabaan Yuusuf Cali Koore gaadiidka Cabdirasaaq Ataasha ganacsiga Maxamuud Saajin xanaanada xoolaha سعيد سروب تليها عيدان كبوليسكا محمد آدن سقدي ميلاتريغا نوح إسماعيل تاني إلى لدى حيبها حيراني xildhibaano ka socday golayaasha baarlamaanka ayaa madashaasi ka hadlay iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda nabadda arrinku ay yaalaan waxaan doonaynaa inay iyagu dhammaataabaan doonaynaa waanu idinka codsanaynaa waanu idinku amraynaa nabaddu sida qoray ku dhalaysa waxa weeye in caqligu taliyo in waayeelku taliyo in ninka aan maalintaa wanaagga arkaynin wanaagga lagu qarqarsiyo lagu qasbo waxaanu annaku idinla hirgelinaynaa haddii aanu nahay xukuumadda shirka wixii aad go'aansataan inaanu idinla fulino annaguna nabad baanu ku shaqaynaynaa daacadnimaanu ku shaqaynaynaa hor ilaahay baanu ku shaqaynaynaa mukhlisnimaanu ku shaqaynaynaa inaad wada noolaataan baanu ku shaqaynaynaa markii horena waadna ogeydeen waad aragtaan sida xukuumaddu ay ugu soo xaamxaamatay aan ku mahadnaqayaa qolada madashan macnaha leh inoo qabatayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qolada ka soo qayb gashay ee arrintan ajiibtayna ee nabadgelyo ku soo xiraysayna iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idinka jasaaysiiyo haddaanu nahay dhinaca dawladda annaku sidii la sheegay waa in wixii lagu heshiiyo un dawladdu ay fuliso waxaan idin faraynaa waan idinka codsanaynaa war waxaan soo noqnoqday inuu halkaa ku dhammaado anigu waxaan ilaahay ka baryayaa aad baa loo duceeyey inaanay tanu noqon mid gunla ay gun yeelato waxaan ilaahay ka baryayaa labada ergee nabadda xabaaliya ninkeed loo kala tegi baa la yidhi loo kala tegi doono guddida dhexda ee la qaban doono inay ka fikiraan nolosha iyo walaaltinimada iyo aakhirada intaba inay ka fikiraan in labada reer halkan isugu yimaadeen oo wax aanay ku kala maarmayn inay ku dhameeyaan oo kaga wada hadlaan ay isla ogolaadeen oo isugu yimaadeen waxaan aaminsanahay inay dhammaanayso oo lagu nabdayo aan loola kala tegin u kala tegi mayno waa ku wada talagelaysaa ilaa aynu dhammayno war 30 sanadood oo baynu gowda isku haynaaye aan sidayno tollimadan aan eegno shaydaankan inagu dhex jirana aan iska naarno wadada quraata ee nabad waarta lagu heli karaya iyo wada noolaanshiyo ay tahay dawladnimada oo aynu xoojino bini aadanka dawladnimada un baa kala saarta annagu waxaanu ballan qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo halkan waxaa lagaga heshiiyena inaanu furino shuruucda dalkana inaanu socodsiino halkan iyo meel walba nabadgelyadiina qarankana danbaa ugu jirta idigana danbaa idigu jirta waxaan ilaahay ka rajaynayaa tay noogu dambayso wax khilaaf ah sharciga hala mariyo haddii la arko group wax samaynaya in loo sheego bilayska maamulka lagu kalsoonaado
madax dhaqameed iyo ergooyinka labada arda ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa arrintaa la dhex taala labadayada beelood ee walaalaha ilaahay inuu guul ku dhaliyo. quluubtii quruxda badneed ee aanu berigii hore ku soo dhaweynay ay maanta nagu soo dhaweeyeen inay noqoto mid ilaahay hortiisa oo dhaba oo runa oo nabad waarta aanu kaga kala tagno meesha. saasaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu watacaala. ilaahay waxaynu ka baryaynaa goobta aynu fadhinayo nabadda aynu fadhino in ilaahay inoo hirgeliyaa. ilaahu noo hirgeli. ilaahu kalgacalka iyo maxabada nagu soo rid. adadii maalintii dhaweyto 3 maalmood oo muddo shareeco ah baanu siinay. maamulkana waxaanu ka baryaynaa inaad dawlad baa tihiin ilinka ka fadhiisataan. nabad baa naas nalugale nin nool baan u taliyaaye nin dhinta uma taliyo iyaga waxaa laga rabaa inay samraan nin nool u taliyaan dee jaamacadda wixii la yiri baa la yiriyo maanta samarsiinka walaalahood loo dardaarmay iyaga laga rabaa. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ugu dambeyntii shirkaasi soo xidhay shirka nabadeynta ee deegaanka Hadhe Cadeeye. waxaan kaloo rabaa halkan runtii inaan uga mahadnaqo madaxda xukuumadda halkan fadhida oo shirkii hore gelisay awood aad u badan iyo dadaal aad u badan gelisay ee Hadhe Cadeeye ka dhacay intii ka dambeysayna dadaalkoodu uu muuqday maantana miisaanka ay leedahay shirka siiyay oo halkan ay ku fadhiyaan raacin ee aynu ku dadaalo sidaynu soo afjari lahayn waxa laynaga rabaa waa wadadii aynu u mari lahayn way inoo muuqataa oo dhammaanteen wanaag baynu rabnaaye wadadaynu u mari lahayn. Liibaan Qaran, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Laascanood.